gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa saaka soo gaadhay magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. Gudoomiyaha iyo wafdidu hogaaminaya ayaa deegaano hoos yimaada gobolka Saraar waxay ku mareen kormeer ballaaran. Kormeerkaas oo ujeedkiisu ahaa sida ay diiwaangelintu uga socoto gobolka Saraar. Gudoomiyaha iyo wafdidu hogaaminaya ayaa waxay mareen degmada Wadaamago oo iyo Caynaba, waxayna mid isu dul taageen goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha. Ugu dambeyntiina waxaa warbaahinta si wada jir ula hadlay wafdida uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo gudoomiyaha saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Salbaan Ducaale Xaaji Jaamac, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. أولاً والسلام يا وفتي وهجامي يقدميه يهجاميها حسبها إن تان وقت كان يكون بحنايان إن يجان أو يهبيان أو يستول تاجان جوابها ضل كل ما أنت نحبها يسبدل بد بعد غير ما أنت لو بهاي ما أنت هل حسبها لين هل رشق ولا يدل كلية رشق الدل كلية هو عبد الرحمن عرو تدقي ما وين باتون ترتنوع شراء مركا واحد دميدان هجار سنة إن أسفي عن سوق الديوان جلسان وحي قان جاري يا وحي مركا وران قاضن وقت وسامح واي يا وحي دل مكيدة إلا بشر كوك نقضي وكجبتي صدق ضاقله واستوان جلينيان يكون ذلك استوان جلسان. وجي أنت غير سراريدي أنت وكالصعدو هدي تيتوغدير السناجي صولبة بوهود له أنت وكالصعدو ديوان جلنتو أحلام هاي لما أنت وسلامتين ديوان جلنتي أداء كديجو ويسعطها شو عم بيسعطها وما هذه لا إلا هذا ما أنا رأي أنت مريني ميل تاجن أما دباتك تاجن تاعي وحنو لنا ريروجي أنت كل ديان كبددالة ديوان جلية سيد الله يدين شيء صدق دقائق بود ديوان جلت الله وتعالى قريب ديوان جلية ددالة هدي موقتاننا هنا سوء عن سود ديوان جلسان دمان دجانا ذن كهذا لياه ولو كردين دونا قدو كمش كانوا حنو قعد صينا وقتها لو كرديو مركب وحوي هرتبال إمك جوابها إمك أنت فرن كود دالة هدي الله كرديو dadkii meel shay joogan ba ee suurtagalaba ka soo qaada dhammaan shacbiga degmada og waa salaamaya shalay sida ka warqabteen waxa duu furmay diiwaangelintii waxaana ka furantay 6 degmo oo ka tirsan gobolka Togdheer gobolka Sool iyo gobolka Sanaag shalay waxaanu soo marray 3 degmo oo Burco Ceelaf Weyn iyo Garadag maanta waxaan joognaa degmada Caynaba degmada doorashada Caynaba dhammaan reerog iyo gobolka Sool inta ay ka bilaabantay dib u furista diiwaangelintu waxaan ugu baaqaynaa shacbiga in la isdiiwaangeliyo oo fursadda qaaliga ee kooban ee waqtiga yara ee maalmaha yara ee 4 cisho laga faa'iideysto sida la idin sheegayna marka dadku dee bato ee la arka dadku inay badan yihiin commissionku way dadaaleen goobaha dadku ku ciriiriga yahayna waa loo kordhinaya waan ognahay dalka in duruufo gaar ka jiraan in abaar jiraan in dadkii fogaaday haw tageen maanta tartanka waxa lagu kala helayaa waa codka halkan dad badan baa degay goboladan oo la mid ah kuwa dega Togdheer iyo Hargeysa laakiin inta badan ismaydaan diiwaangelin reer Sool ismay diiwaangelin marka diiwaangelintii maadaama la furay laga faa'iideysto waxaan qabaa in la tartami kartaan Boorame iyo Hargeysa iyo Burcaba aad ha loo dadaalo hal isdiiwaangeliyo dhalinyaradu ha isdiiwaangeliso وعلي آذن درع علي تاني ورركة تلفزيون كون كيبل مقالة Caynaba.